munaasabad casho sharaf ah oo si heer sare loo soo agaasimay ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho taasi oo lagu soo xidhayay bandhiga kaararka caafimaadka oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho isla markaana ay soo agaasimeen ururka kaararka caafimaadka Somali Health Cards waxaa soo amiray madaxda isbitaalada dalka mas'uuliyiin ka socotay waaxaha caafimaadka ee jaamacadaha dalka aqoon-yahano ardayda barata kulliyadda caafimaadka iyadoo goobta ay ka dhacday dood lagu lafagurayay sidii barnaamijkan uga hirgeli lahaa dhammaan dalka oo dhan iyagoo halkaasi afkaarta lagu kala weydaarsaday sidoo kale kasoo qaybgalayaasha ayaa su'aalo weydiiyay mas'uuliyiintii ka socday isbitaalada dalka laakiin agaasime shaqada qabateen waa ku maasantiin si fiican aqoon ahaan iyo dhan walba dhaqaalihii diyaaradii wixii waa baadiseen dhaqaatiirtana runtii waa dhaqaatiir la hubo dad badan oo ku caafimaad ay yimid oo idiin mahad celinaya marka in wax la sii dhimo oo qiimaha laga sii dhimo kulay waa dhinteen alxamdulilah rabbil caalamiin laakiin haddii free laga dhigi karo foundationkiinaas ayaan codsanaynaa fariintaasna inaad qaadi doontaan aan rajeynaya Center of Dialysis samayseen Soomaaliya waa ogtahay adaa hore u sheegay wax badan oo wiiga ayaa jiro waxbarashadu ka mid tahay caafimaadka ka mid yahay waxyaalo badan baa jira qaab nooceed uga fikirteen inaad ummad Soomaaliyeed waa la qaadi jiray dibadda la aadi jiray wadamo horumaray baa la tagi jiray qofka lagu aamini karayo kaartirinkiisa iyo kaliyihiisa in maaragtay dib loo kontrolo qaabkeed uga fikirteen in la idinku aamino adinkoo xamar joogo haddana magaalada geeskeeda degay in aad ummad Soomaaliyeed la idin keeno kaliyahoodii iyo baarkoodii dhaqadaan ay caafimaadaan ma jiraan dad caafimaaday oo aad nala wadaagaysa waxaa sidoo kale goobta ka hadashay gudoomiyaha ururka kaararka caafimaadka iyadoo ku dheeraatay ujeedada ay u sameeyeen barnaamijkan Dr. Nasra kaararka caafimaadka Soomaaliyeed hore way soo socotay haddana way sii socon doontaa haddii Allah uu dila karaal noqdo markasta meel kasta diyaar ah idin la nahnay in adeeg caafimaad oo dhameystiran idin siino laakiin bedelkeeda waxaan rabnaa mar walba kama daaneynay isbitaaladka ayaga ayaa amaanta iyo mahadnaqa intaba leh sababtoo ah saan hore u soo sheegaybo mar walba aan sheegaya xarunta kaararka caafimaadka Soomaaliyeed isbitaalada meeshan ku yaalo boor idinkaga muuqdo iyo kuwo kale oo aan boor ka muuqan laakiin madasha kamid ah iyo ku nooshahay ku joogtaa in aan barno oo business kale ama bulshadeena aan ka joojino maalinba dhakhtar maalinba hospitaal hor Allah in ay tagaan inaan ka joojino yaa waxa u sameynay base ama meel ay helaan hal dhakhtar hal hospitaal cabashadana waxa yareyn karo inuu qofku helo badiil oo discount ama maxaa la yiraahdaa adeeg bilaash ah inta waa naga aqbaleen waxaan rajeynayaa insha Allah in halkaas inoo soo qadimi doonto barnaamijkeena ahaa xarunta kaararka caafimaadka Soomaaliyeed nasiibuna asxaabteena iyo maxaa la yiraahdaa teamkeena waa idinku mahad celinayaan sida quruxda badan cawda inoo soo ajiibteen waqtiyihiina qaaliga inoo soo horteen shirkadihii ugu dambeeyay baahideena ka jawaabana wuxuu ahaa shirkad rikaab oo aadan 2 days in ka yar aqbalaad ku sameysay in madasha nala support gareyso nagarab istaagto markasta meel kastaba insha Allah marka waxaan rajeyn doonaa shahaado qaybintii inaan sameeyno oo abaadka ka bacdina cashadeena inaan cunno haddii Allah uu dil karaal noqdo sawiro oo together ah ama maxaa la yiraahdaa wadajir inaan wada galno intiin hadda wada fadhino waxa waaye shacab u badannahay laakiin waxa la yaabaa Britol inuu wasiiro noqdo si bujara asaga reebno sawiro wada gali doonaa marka waxaan rabnaa inaan madasha ugu waco Nur Yusuf Nur suldaanka sidoo kale doole Abdul Cilmi Abdi waxaa in madashan imaadaan oo saas shahaadooyinkii lagu guddoonsiiyo kambaniyada meesha waxaa ugu dambeyntii shahaadooyin la guddoonsiiyay kasoo qaybgalayaashii bandhiga caafimaadka ah ee muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho waa Ibrahim Suleymaan Hanuuniye M24 TV magaalada Muqdisho